السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، عيد مبارك. عيدي بسولو. إلهي عبادها نقا أقبله. دنبجين هردافو يكي والدكين با إلهي دلكيني iyo dadkeenii abaartu iyo dhibaatooyinku ay saameeyeen ha ka dulqaado dhammaan. Waxaan rabaa inaan hal qodob ka hadlo oo beryahan runtii aad u saameeyey industrigeenna. sida aad ogtihiin la wada ogyahay 2 week ka hor waatuu bilaabmay dagaalka Iiraan. 3 maalmood ugu horreeyay wixii ka dambeeyay gudaha Mareykanka waxaa laga dareemay isbedel ku yimi energy-ga, khaasatan gaasta iyo oilka, taasoo si toosa isla markiiba u saameysay trucking industry-ga. waad aragteen meelaha qaarkood gaasta waxaa ku darsamay $1 iyo badh, $2 oo dhowdhow, meeshii $3 iyo wax yar ay ahayd maanta waa $5 iyo wax la jira. National average by the way waa $5 hadeer. markii horena wuxuu ahaa 3 iyo adigu 380 390. marka isbedel way baa dhacay. waxaba inagu kama qaban karno waxyaabaha banaanka ka yimi ka baxsan dagaalka Iiraan iyo Mareykanka iyo u dhaxeeya Israa'iil. Strait of Hormuz la xiray, gacankii maartay qulqulka oilka iyo tankarada ay kasoo gudbi jireen. awoodina waa ka baxsan yihiin. marka inagu marka hadda taladan raba inaan soo jeediyo waxa weeye waa talo kooban oo inteeda badanna ku qotonta cilmi baadhiso horey loo sameeyey iyo practices ama dhaqamo horey loo sameyn jiray kambaniyadu ay sameeyaan. marka gaasta waxba kama bedeli kartid qiimaheeda. adiga qiimo jaban kuma heli kartid, waxba kama qaban kartid, tracking waad ku dhex jirtaa, kama bixi kartid. qofkii maartay exit kale heli kara waa meeshiisa, laakiin qofkii ku jiraya. marka 5 qodob oo kooban oo aan isleeyahay in bay faa'iido u leeyihiin industrigeenna iyo small businesskeenna ayaan ka soo maartay qoray. badankooduna saan sheegay cilmi baadhiso iyo practiceyo hore loo sameyn jiray oo xataa markii dieselku uusan qaaliga ahayn la sameyn jiray ayay ku qotomaan. qodobka koobaad waxa weeyaan gaarigaaga speedka inaad ka xidho ama speed govern inaad ku samaysid. aad ku xidhid wixii ka hooseeya 65 miles per hour. 65 iyo wixii ka hooseeya 63 64 meelahaas. haddaad sidaas samaysid ama aad ku xidhid ama aad ku wadid oo cruise halkaa ku xidhatid, studiesku waxay sheegayaan inaad safe garin kartid 10 ilaa 20% gaasta marka loo barbar dhigo markaad ku socotid 68 ilaa 75 inta u dhaxaysa. marka loo eego la barbar dhigo 64 iyo hoos marka loo degay ilaa 62. boqolkiiba 10 ilaa 20 inta u dhaxaysa. spaceku sidaa wuxuu ugu weyn yahay. waxay ku xirantahay gaarigaaga da'diisa, waxay ku xirantahay loadka aad wada culayskiisa, waxay ku xirantahay buuraha aad marisid, waxay ku xirantahay dabaysha, waxyaabo badan bay ku xirantahay. marka intaasaa safe gareyn kartaa. RPM taadu haddaad ku ilaalisid bay ku leeyihiin. by the way studieskan waxaa sameeyey American Tracking Research Institute qolo la dhaho ayaa sameysay oo waxyaabaha transportationka iyo energy-ga iyo waxyaabaha aad uga faallooda. 12 to 1400 RPM haddaad ku socotid weey. taasi waa qodob. qodobka labaad, iska yaree dead hairkaaga. dead hairka waa taqaanaa qolyaha trackingku waxa weeye meesha load ku dejisay ilaa iyo loadkaaga ku xiga meesha aad ka qaadasid soo yaree 20 mile 30 mile 50 mile soo yaray meeshii laga yaabo inaad aad jirto 100 150 120 180 because
spacekaas aad loadka meeshaa dhigtay iyo meeshaad ka kale ka qaadaysay inta u dhaxaysa waa unpaid way cida kuma siinaysa lacag brokerku lacag kuma siinayo haddii aadan marka u shaqaynaynin company weyn oo every mile oo aad dhaqaaqdidba lacag ku siinaya oo aan ku kala xidhnayn empty miles iyo loaded miles. qodobka saddexaad waxa weeyaan isku day inaad loodhar fudud qaadatid. loodharka culus iska ilaali because markastoo loodhku uu culus yahay gaasta uu kaa cunaya way badanta. markastoo loodhku uu fudud yahayna gaas yar baad isticmaalaysa. marka haddaad isku hesho loodh fudud iyo maxaan ku dhahday dheer heerkood soo yarayso gaas badan baa seef garanaysaa. taas waa qodobka saddexaad. midka afraad isku day inaad ka leexatid ama iska ilaalisid ama intii tamartaada dee meel walba kama wareegi kartid wax walba iskama ilaalin kartid laakiin inaad buuraha ka leexato. buuruhu gaas badan bay cabbaan gaarigana way u daran yihiin ma garatay buuraha inaad iska ilaaliso. qodobka buuraha waxa weheliya toolka baa ku lamaa buuraha iyo toolka sababtoo ah haddaad buurna aadid loodh culusna qaadid toolna sii aadid 3 jeer baad lacag bixinaysaa oo unnecessary culayskii iyo buurtii iyo toolkii intuba waa costly lacag bay cost garayaan. midda shanaad ee ugu dambaysa waxa weeye isku day inaad raadsatid fuel card discount leh qiimo dhimis leh hadduu yahay mid flat rate ah iyo haddii uu yahay midka variationka ah oo maaragtay station waliba qiimo gaar oo discount leh qaar baa 10 bixiya qaar baa ilaa iyo $1 bixiya. average-ku waxaan u malaynayaa hadda fuel cardada badankoodu waa 50 to 70 cents off per gallon halkaa lacag badan ayaad ka seef garaynaysaa. marka taa waxaan ku dari lahaa oo aan qodob lixaad maybe ay ahayd inaan ka dhigaba isku day inaad pre-plan samaysatid meelaha gaasta aad ka qaadanaysid stateada loadkaagu distancega uu soconayo. marka waxaad isku aadisanaysaa ama aad qorshaysanaysaa meeshaad gaasta ka qaadanaysid meesha gaasta jaban ee buuraha loadkan inta aad waddo gaastu inay kugu filnaato meesha ku xigta aad gaasta ka shuban kartid oo gaasta ka buuxsan kartid. isku day meelaha gaasku jaban yahay inaad gaasta ka buuxsato oo aadan samaynin meel gaasku qaali yahay meel gaastu jaban yahay intaad dhaafto ama qorshuu kaa xumaado in meel gaastu ay qaali ku tahay aad gaasta ka buuxisid kabacdina markaa aad kharash badan gaastii ku bixisid. marka waxa weeyaan waa combination intaba haddaad isku waddo waxaan u malaynayaa inaad waxna ka baranaysid oo xataa mustaqbalka haddii gaastu ay xataa hoosu soo dhacdo ku caawin karta haddeerna aad wakhtiga adag kaga gudbi kartid haddii aad 1 gaari tahay iyo haddii aad 5 gaari tahay iyo haddaad kambani weyn tahay intaba arrintani way ku anfacaysaa. isku day inaad intaba wada samaysid. haddaan hal mar kugu celiyo gaarigaaga speedka ka xidh loodhar fudud qaado ama raadso dheer heerka iyo ama empty mileska iska yaree buuraha iyo toolalka iska yaree ama iska ilaali. tow dambaysa fuel card maxaan magaranaysaa fuel discount raadso. intaa haddaad isku manage garaysid isku celcelisid waxaa hubaala inaad dad badan ka fiicnaan doontid. laga yaabo kuwo kale oo aksar ah oo intan aan anigu hadda soo ururiye ka baxsanna inaad haysid oo aad isticmaali kartid oo wakhtiga adag aad kaga gudbi kartid. I hope inaad wax ka faa'iideen. khayr baa idin rajeynayaa. asalaamu calaykum.